maxaa muhiim ka dhigay cunista malabka? Sababaha ay muhiim u tahay in la cuno malabka ama in la joogteeyo cunistiisa. Xanuuno halis ah oo lagu daaweeyo. Muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa maanta malabka iyo waxtarkiisa iyo faa'iidooyinkiisa iyo waxay muhiim u tahay qofka malabka cunistiisa in uu joogteeyo subaxdii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran channelkeena caafimaadka ee caafimaad channel. soo dhawaada walaalayaal, ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo xiiso badan. haddii aad nagu cusub tahay fadlan soo dhawow oo muuqaalka like saar, channelkana ku soo biir. haddaad horey noola joogtay waad mahadsan tahay. topic aad iyo aad muhiim u ah ayaan ka hadli doonaa maanta. sababaha ay u fiican tahay in malabka la cuno subaxdii. malabka ma waxaa jira dad aan cuni karin? xanuunadee ayaa malabka lagu daaweeyaa? qaabkee ayaa loo isticmaalaa? waa ay badan yihiin daraasadaha caafimaad ee midba dhanka eegto faa'iidooyinka aan la soo koobi karin ee alla malabku u geliyay aadamaha, iyada oo mid kasta uu soo bandhigayo natiijo muujinayso faa'iido aan horey loo ogeyn. haddaba cilmi baaris dhowaan soo baxday ayaa iyaduna daah furtay in koob biyo diiran oo malab lagu daray oo maalin kasta la cabaa ay si weyn uga qayb qaadato dhimista miisaanka, isla markaana ka hortag u noqoto xanuuno fara badan. koob biyo qandaca haddii aad ku darto malab subax kastana aad cabto in ay miisaan dhimista si weyn kaaga caawinayso, sidoo kale ay ka hortag u tahay xanuuno fara badan. natiijada daraasadan ayay waxay iftiimisay in malabka oo la cuno subax hore inta aan cunto kale la cunin ay ka hortagto in qofka uu cunto badan cuno, maadaama uu malabku dharag keeno, sidoo oo kalena ay yareyso xiisaha uu qofka u qabo cunista macmacaanka iyo sonkorta. annagoo og macmacaanka iyo sonkorta halista ay ku yihiin caafimaadka iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo. dad badan ayaa og dhibaatada ay leedahay macaanka iyo sokorta oo la badsado, laakiin aan ka reebi karin naftooda oo la qabsaday. haddaba haddii aad subaxdii ku afbilaabato malabka, naftaada waad ka reebi kartaa in aad macmacaanka iyo sonkorta xiise u qabto. waxay xeeldheerayaashu sheegeen in malabka uu galo kaalinta daawada jeermiska disha ee antibiyootiga. malabka inuu yahay antibiyootik ama qalajiye jeermis dilo, taasoo sababta in uu xoojiyo habdhiska difaaca jirka. sidoo kalena waxaa ku jira maadooyin lidi ku ah mariidka, fitamiino, macdano iyo dheecaano kala duwan oo dhammaantood muhiimad weyn u leh caafimaadka. sidoo kale cilmi baaristu waxay iftiimisay in subax kasta oo la cabo biyo diiran oo malab lagu daray ay si weyn uga hortagto calool xanuunka, dibirada iyo naqaska caloosha isku xiro. waxa ayna sababta ku sheegeen in dareerahan malabka lahi uu leeyahay awood in uu nuugo neefaha ku jira mindhicirada, isla markaana uu yareeyo calool xanuunka. haddaba haddii aad dareemayso calool xanuun ama gabdhaha ama haweenka markii ay caadada ku xanuunsanayaan oo kale, aad ayuu ugu fiican yahay, waxtarna ugu yahay malabka. waxay khubaradu sheegeen in malabku uu yareeyo kolestaroolka iyo wadna xanuunka, wuxuuna caawiyaa bogsashada nabarada bogsashadoodu ay adkaatay. waxaa kale oo malabka loo isticmaali karaa in wejiga la mariyo oo lagu dayaco tiro ama lagu qurxiyo, cabaar kadibna laga meero si uu jirka u nadiifiyo, isla markaana midabkiisii dabiiciga ahaa u soo celiyo. dadka qaba wadna xanuunka iyo dadka qaba kolestaroolka, malabka aad ayuu ugu fiican yahay oo waa uu sifeeyaa wadnaha. sidoo kale wasaqda iyo kolestaroolka dhibkiisana qofka waa uu ka yareeyaa. subaxdii markii aad soo kacdo, biyo diiran ama biyo qandaca ku darsa malab haddii aad leedahay kolestarool ama haddii aad leedahay wadna xanuun intaba. haddii ay kugu yaalaan boog ama nabar bogsashadooda ay soo dahday, malabka aad ayuu boogaha u bogsiiyaa oo boogta wuxuu ka dhigayaa boog ama nabar si dhaqso ah ku bogsooto. waxaa kaloo malabka loo isticmaali karaa in wejiga la mariyo oo lagu qurxiyo. haddii aad tahay gabar doonaysa inay isqurxiso si dabiici ah,
kiimika la'aan, nabar haday kugu yaalaan, xitaa haddii uu nabar kugu oolin, haddii aad rabto in wejigaaga si dabiici ah uu kugu dhalaalo, waxaad marsanaysaa malab. waxaadna marsataa xilli jawiga uu qabow yahay, tusaale ahaan subaxdii oo kale ama habeenkii oo kale. ha ku seexanin waqti dheerna ha la joogin, ugu badnaan 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo markii uu ku marsanaado wejiga ka dhaq. waxaad dareemi doontaa maalinta koowaad oo aad marsato oo aad wejigaaga malabka ka dhaqayso isbedel aad u weyn ayaad dareemi doontaa. markii aad wejigaaga taabanayso, wejigaaga wuxuu kuu noqonayaa weji naacim ah, weji marka taabashadiisa aad u bogayso. sidoo kale nabro iyo madmadow haddii ay kugu yaalaan, muddo haddii aad laasinto malabka keligiis oo aadan wax ku darin, waad ku fiicnaan doontaa biidnillaah. intaasoo faa'iido iyo ka badanba waxay ku duugan yihiin isticmaalka malabka. haddaba haddii aad tahay qof malabka xasaasiyad ku qaba ama aad tahay hooyo uur leh, kuma wanaagsana malabka inaad isticmaasho, gaar ahaan hooyooyinka uurka leh uma wanaagsana malabka inay isticmaalaan. kaliya waxay isticmaali karaan markii ay bilo dhamaystaan ama markii bisha 9aad ay gaaraan waliba ay dhamaystaan ayaa safe ah inay isticmaalaan malabka, waayo malabku wuxuu ka mid yahay waxyaalaha foosha soo dedejiyo. marka haddii aad tahay hooyo uur leh, iska ilaali malabka iyo isticmaalkiisa intaba. wejiga waad marsan kartaa oo waxba kaama dhibayso, laakiin inaad malabka cabto iska ilaali. haddii aad tahay hooyo uur leh, kaliya waxaa kuu bannaan inaad isticmaasho markii aad 9kaaga bil dhamaysato oo aad xilliga foosha joogto. kaliya ayaa safe ah hooyooyinka uurka leh inay malabka isticmaalaan, inta ka horeysa uma isticmaali karaan. haddii aad tahay qof malabka xasaasiyad ku qabo oo aad ogtahay inaad xasaasiyad ku qabtana, kuma fiicno inaad malabka isticmaasho. inta kale ee bulshada waa ay ka faa'iideysan karaan, wayna isticmaali karaan malabka. sidoo kale ilmaha aadka u yar ee hadda dhashtay oo kale uma wanaagsana malabka. dad badan oo waxaa jira ilmaha markii ay dhashaan afka wax yar waa loogu tiri karaa, laakiin u joogteeyo oo malab ka tan badan siiyo. malabka waa wax aad iyo aad culus. ilmaha dheefshiidkooda waa iska yar yahay, waxyaalo yar yar ayaa loogu talagalay. ilmaha markii ay yar yihiin, kaliya waxaa ku filan oo ka badan hooyada naaskeeda. haddii uu cunuga naas nuugayo, uma baahna malab inaad siiso. dad badan oo waxaa jira ilmaha malab siiyo, sidoo kale biyo siiyo. biyo inaad ilmahaaga siiso iyo inaad malab siiso intaba halis ayaad gelin kartaa. waxay keeni karaan in sokortu ilmaha ka dhacdo, waayo ilmaha dheefshiidkooda aad ayuu u yaryahay. ilaahay ayaa u diyaariyay wixii ay isticmaali lahaayeen, waana hooyada naaskeeda oo kaliya. inshallah ilmaha yaryarka ka ilaaliya malabka, sidoo kale biyaha ka ilaaliya, uguna dadaala inaad siisaan caanaha naaska. haddii aad batahay hooyo caafimaad qabto oo naaskaaga uu caano leeyahay, ilmahaaga wax kale ha siinin, naaskaaga ayaa ku filan oo ka badan intii uu ka gaaraya 6 bil. 6 bil markii uu gaaro ayaad wax kale u bilaabi kartaa. waad mahadsantiin walaalaha sharafta leh. waxaan filayaa toobikeena maanta inaad ka faa'iideysateen. muuqaalka like saara, walaalo badan gaarsiiya. haddaan ugu cusub tahay soo dhow, haddaad hore u joogto waad mahadsan tahay. wassalaamu calaykum.